kusoo dhawaada barnaamijkeennii cunno karinta ah anigoo ah Sheef Cabdicasiis Caawa waxaan idin soo bandhigayaa habka wacan ee loo kariyo ama loo subiyo sweet potato ama bataatiga macaan. dad baa waxay isku qaldaan sweet potato iyo waxay isku qaldaan maaragtay yamiska waxa uu leeyahay qaab kale waxa uu leeyahay qob adag ka adag qobka sweet potato-ga iyo aragti kale oo ka duwan wana dhererkiisana aad buu u dheeryahay. yamiski waa kan sweet potato aan fiiqdana waa kan. sweet potato-gan waxaa lagu cunayaa as a side dish, waxaa lagu cuni karaa as appetizer sahan ayaa loo cuni karayaa, kaligiis aad cuni karayaa. laakiin hadda waxa aan hudhoota aan karin doonaa aan maaragtay qaybta labaad siin doonaa steak aad iyo aad u fiican. steakgaas ayuu wuxuu u yahay side dish ayuu u noqonayaa. marka sweet potato-gi waa kan waxa aan subinayaa digsi halkan yaalla ayaa soo qaatay, waxa aan ku shubayaa biyo qabow ayaan ku shubayaa, kadibna waxa aan ku darayaa bataatigii. dabka ayaan saaranayaa ilaa iyo oo ka jileec oo ka noqdo ama maaragtay ilaa iyo 12 daqiiqo. bataatigii macaanaa woo karkaray waxa oo kale 12 daqiiqo waan ka qaadayaa, biyahaan ka miirayaa. bataatigii waan ka miirayaa, baastamiirka ayaan ku shubtay, biyihii waan ka miiray, kadibna waxa aan ku soo celiyay digsigii dabka ii saarnaa. si fiican ayaan u walaaqay si ay biyaha iyo dhacaanka uga baxo. kadibna sixni kale ayaan waxa aan ku shubtay moos iyo basbaas aan isku googooyay. dushana waxa aan kaga daray ama kaga darayaa hadduu ilaahay kuu rooyahay pineapple, hal qaado cusbe hal qaado oo filfile, 2 qaado oo malabe. si fiican baan iskula walaaqayaa. waa burburinayaa kan loogu talagalay mashed potato-ga in lagu burburiyo ayaan si fiican u burburinayaa. waxa aan mariyay black pepper, waxa aan mariyay cusbo, waxa aan mariyay toonta nooca powderka loo yaqaano, wax kale ma marin. dusha waxaan ka marinayaa yaro maaragtay waxyaalihi aan isku daraya, cusbadii, black pepperkii iyo toontii ayaan ku daray. ujeedaan dabka uu ii daaran yahay, birtaawadaan saaray. waxaan ku shubayaa 2 qaadoo saliide. birtaawo aad u kulul ayaan waxa aan ku ridayaa steakgii, labadii steake labada dhinac ayaan ka gaduudinayaa oo caramelize aan ka dhigayaa ilaa iyo 3 daqiiqo dhinac walba. steakga labada dhinac ayaan ka madoobeynayaa, dhinac walba 4 daqiiqo, kadibna dhinaca kale ayaan u gadinayaa. steakga kor waa ka siir gareysmayaa, gudihana wuxuu ka noqonayaa juicy oo aad iyo aad u macaan. steakga waa ka qaadayaa, sixni ayaan ku shubanayaa, kadib birtaawadii dhacaankii ku jiro steakga ka soo haray ayaa waxaan ku darayaa yaanyo miro, basil iyo rosemarino. si fiican ayaan u walaaqayaa si uu maaragtay deglazing uga noqdo. waxaan kaloo ku darayaa worcester sauce. basal ayaan soo qaatay, dhinaca kale ayaan birtaawada ku shiilayaa. waxa aan ku darayaa 2 qaado oo badharka iyo yaanyo miraha ayaan si fiican iskula karinayaa ilaa iyo 3 daqiiqo. markuu si fiican u karo oo sooska oo yaraado oo noqdo 1 qaado iyo bar oo noqdo waan ka qaadayaa. steak ayaan dusha kaga darayaa. steakgii waa kariyey, sooskiisii waa diyaariyey, steakgiina hore ayaan u diyaarsaday, dhinac ayuu ii yaallay. waxa aan soo qaatay sixni, waxa aan ku daray oo si qurxoon ugu riday aan ugu daray sweet mashed potato-gii, bataatigii macaanaa oo pineapple-ka lahaa oo basbaaska lahaa oo mooska lahaa ayaan ku daray. kadibna waxa aan dusha ka saarayaa steakga waxa aan dusha ka sii saarayaan ku sii qurxinayaa caleenta nooca loo yaqaano basil. dhinaca kalena waxaan dhinaca kale garab dhigayaa steak kale oo aan basashii oo aan hore u suubsaday asagana dhinac ka dhigay. yaanyadii ayaan soo qaadayaa, dusha ayaan kaga darayaa, kadibna sooskii oo yaanyada la socday oo 1 qaado ahaa ayaan steakga ku wareejinayaa si uu u siiyo dhadhan
macaan oo aad iyo aad u wanaagsan aadna u qurxoon steak-gan waa ujeedaan waxaa la yidhahdaa steak tenderloin steak oo aad iyo aad u fiican yahay waa steak fillet waxaan week dambe soo qaadanaya hadduu ilaahay yiraahdo steak nooca la yiraahdo alla soomalo week dambe meel alla meesha joogtaan ka daawada hadduu ilaahay yiraahdo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh anigoo ah sheekh cabdi casiis dhicis waxaan idin leeyahay amaan allah